بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan noo yeeray komishanka qaranka ee doorashooyinka saddexda gudoomiye waxaan inaga codsadeen arrintan abaaraha iyo doorashooyinka isku soo beegmay adag inaanu u soo jeedino amaanu xisbiyadu ay keenaan soo jeedintooda iyo wixii ay ka qabaan saddex qodob baanu geynay ka koobaad waxaan isku raacsanahay dhammaantayo saddex xisbiba inay dalka ka jiraan abaar baahsan dalka jirto oo ay iska hor imanayaan ama ay saameyn weyn ku leedahay waqtigii doorashada loo qabtay ee ahayd 8 March inay iska hor imanayaan abaarta hawsheeda iyo hawshii doorashadu labada xisbi ee mucaaradka iyo xisbiga kulmiye laba raay bay kala jeediyeen kulmiye wuxuu jeediyay in arrinta xalinteeda iyo furdaaminteeda loo raaco hab sharci ah sharciga loo raaco labada xisbi ee mucaaradku iyagoo midaysan wadani iyo u cidna waxay soo jeediyeen in 6 bilood dib loo dhigo intaasaanu qoraal aanu u geynay oo saddexdaba saxanay koobigina waa kan idinka kala sawiran doona aad iyo aad u mahadsantiin